koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaanayn kalamaanay xalay waan riyooday aryaa heer waqooyi ma seexdee shimaad hurdada bilowdeen war abdulowlaanka muhundurna dabaabi haddii ou dambaabay istaakfurula war adeer annaga reer waqooyina lama yidhaahdee somalilan baana la yidhaahdaa warwarka hanaga dhex gelina waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo oo ka jawaabaya gabaygii faarax nuur ee shalay muuse biixe tiriyey haddii xalay madaxweyne farmaajo waa gabiye horta gabayga iga dhegaysta waxaana uu yidhi muusow in adeer amarkii labadeenna abi axmedina soo faray haddaad oofin weydo orramada joogta hargaysa haddii uu amar siiyo ayadaa kugu aadda odaygiiyo jijigaadiyo sidii ina ilaybay kuu afduubahayaan esanamtiina ma hayside arrintaa ha iloobin walaal yaa madaxweyne farmaajo muuse biixiyo minaadan caleeme qoyan igu soo dhowaynin waa ka shallaaya miyow ka wadaa war adeer war ma haystaane reer hargaysa oo dhani waxay ku heestaan muuse biixi haddaanu jirin waanu jabi lahay muuse biixi cabdi xildiid nimiyow may dheegi jiray lan welb walaagusan baradan bukoode handaraabka lagobsideen ma reer hargaysa war shacabka sooliisanaag buntlandna ma raacsana somalilanna ma raacsana waa reer bu'aalaba jubbada hoosena ma raacsana gadana ma raacsana xagguu raacsan yahay bu'aale ciidanaa la geeya miyaad idhaahdeen haddaad joogto bu'aale misna aad baxsan weydo baydhabaa la tagaa hayehee axmed waranlow gabagaasba maday isaaqaa kuu soo dhiibay war lafta garaan mar hori ari baydhawi iyoonay muqdisho jidkan dhehay hureeye waana ma hurayna war madaxweyne waaraba jidka u dhexeeya jawri beledweyne meeqowlaha waa la furaya ma dadka ma rabaad qaade war wax ma ogidine maanta hargaysa waxaa ka degay wasiirkii maaliyadda etoobiya axmed shiddo war beenta ha sheegin shidda ciidanka asluubta u ka tirsan yahay war mataliya shuba xilka laga qaade war adiguba shubay warka naga dhegayso waryaa hadda waxaa loo malaynayaa axmed shiddo warkii muuse biixi shalay ka soo yeedhay inuu leeyahay war waxaas yaan lagaa maqale soo dhowe madaxda ku imaanaysa war adeer somalilan waxba looma yeedhiyo war cirre iyo faysal uu ka baqayaaye muuse mar hore waa aqbali lahaa ma dugsi qur-aankay uga adkaayeen maandhow war waa marantihiine muuse biixi waa mujaahid asanam ka tirsanaa jiray warnimiya war mahaytana shabeellaha hoose geega geed dagaala hayti yaa maday isaaqow ma geedka kalamaanaad beriga dagaal haddana keentay war dagaal kastoo dhii kalamaan ina ogiin aniiba oga dar warka oo dhegansada halay iyoonay geegaba eelsaliini dagaala ka dhii goryoolay dagaala ka dhii haawo abdi dagaala ka dhii waana may baan dhehee dawladd iyoonay shabaab antaas iyoonay meelika badanba wal iska riigamaya leeri kii angadaranayn eelsaliiniya ka dhii goryoolay naftii aan ku reebta buuntadiinahaad wal dumiya leeri wal saliidkan mar walba laleeya waa lagu diriray ma saliid baa laga helay aryaadhaha dagaal iyo dil nooma cusbeen buundooyinka waxay u dumihayaan dadku heesu gudbeen horta shabaab buundooyinka ay dumiyaan ma ridday u daliishadaan iyagana horta buundooyinka ma ku cibaadaysaayeen war dad xayawaan qarax ku xidhay ayaad leedihiin maxay buundo u dumiyeen waa sidaad u sheegtee horaa waxaa loo yidhi how ninkii dhintay dhul waa heele kuwaan dhaqmaya xaad dhahdeen ninkii dhintay dhul waa heele kuwaan dhaqmaya xaad dhahdeen warwar ma haysiine somalilan waa tii madaxweynahan waa soo dhowaynaynaa iyo soo dhowayn mayno ku murmaysaye maxaad war haysaan xaggee saxaal maraya madaxweynihiisa ma baxo ma aada meesha war weli boorarkii madaxweynaha hargeysa lagu soo dhowaynayo lama dhijin warnimiya umay leeray ashuunkii biisheena doona eretilkagaadiya tilmaangay waa leeri homadwiinaha dhowaayi doonaan warkijokiisan dheegasan ahayti oo lahaayeen war annaga haddou noo yimaado wiil soomaaliyeedoo abii soo raacay baan u aragnaa may ka filaasanhe haho waa tii la dhihi jiray orgaga owrnaqa doona idigta waa ka tilmaan war ajendaha ugu weyn 30 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya oo hargeysa tegi waaye waana kaabeenka ugu weyn ee doorashada soo socotay nabadii nool ay ku geli doonto war 30 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee waqooyiga kuuriya taga donald trump aan noqday muxuu ka dheef warnimiya umay warsa oo madawiine farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre
gobolka gadiin bahayaan may lahayne arooda aniga waa yaabanee maanta geedka reer somalilan waa ka maqan yihiine ma waxay ka qayb galeen soo dhowayntii farmaajo hankoolkii galmudug baberiga geedka waa ka maqan yahee macalee masaarkii qoorta gareenow ka qayb galay warwariyaashii ilig iyo kuraase garoonkaa laga soo celiyaa layidhi haddana ma muusaa handaraabtay war dul yaraa ka dambeeye in la soo celiyo wariyaalkaas guraas adaleeta itoobiyaan ahaayena maya aroo soomaali abboobay ahaayeen war kuwii lahaa nabadii nolol mishaar ka qaataan miya aryaadhaha waryow idin daalina waxaa la yidhi midnimadii hargeysay taalla goosashadiina muqdishay taalla war muqdisho waxaa taalla midnimada soomaaliya waa muqadas hargeysana waxaa taalla go'ona isutaagga somalilan waa muqadas marka labada muqadas kee laga tanasulayaa naw wartaanada laga tanasuli maayo aryaadhaha waxaan maqli jiray berrinkan haddaan laga guurin goronyo heeriyaysanna waa imaahee mugaberiga geedkii kalamaan miyaa naw iyo wax leesugu keenay boowe buntland waa hooyada federaalka boowe buntland murun kuma jidho ma jidha iyo waa jidha waa isku qaba jidheen war anugu waxaan la yaabanahay jubbaland waxay tidhi dawladdu gobolka gedo jabhaday ka samaysay kuwaas oo la rabo in dawladda jubbaland loogu dumiyo ahlu sunnana waxay tidhi dawladdu al-shabaab ay galmudug ku abuuraysaa marka waxaan la yaabanahay meesha madoobe iyo shaakir ku tashadeen anna waxaan la yaabanahay dawlad shabaab iyo jabhad lagu eedayhaayo geedkaanu miro badana war anugu waxaan kala garan waayey shabaab iyo kenyaatiga sababtaan u kala garan waayena waxay tahay ciidamada kenya sharci darray soomaaliya ku soo galeen dadkana waxay ku laayaan sharci darro shirkaddii hormuudna ateerooyinkooda iyo dhismaheedii sharci darray ku burburiyeen shabaabna waxay kenya ku galeen sharci darro dadkana sharci darray ku dilaan anteenooyinkii safaricomna sharci darray ku jajabsheen marka waxaan la yaabanahay kenya iyo shabaab maxay ku kala duwan yihiin saasay u dhaqmayaane aryaadhaha kenya iyo shabaab waa isku shaqo ninbana shaarkiisa u gaar u wataa horaana waxaa loo yidhi ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shaki ma leh inay lama shabaab wada shaqeeyaane war aniga waxaan la yaabanahay waxay shabaab bu'aala ku arkeen shinni kulahaysee shabaab meel kastaas joog aha naga shibdhe war wali liyaabsanaa geeka ciidankii dawladdu xudura amiirhaaska dhiibiya eren taytalshayna may baa ka sheegaan inoo darawal haay reed may goradu waysanaa amiir iyoonay darawal wali inaska gali aryaa waa mid ay rabaan hadda inay noo dallacsiiyaan xaad ka sheegsheegee kaas aroo xidiga maa loo dallacsiin rabaane war kuwii niisa sheegtay in xilalkii laga qaaday aaway mayse soo dhiibeen warnimiya war mahaytana geeka mayba warsiinkahaaya diinsoor war ma lafta garaanaa booqday xasan aadan miyaa dooyo waniini walefdaaray ka dhex qaaday war ma diinsooraa lagu duulaa tiri warnamang marangaatina warka noo dhegansada diinsoor diyaariyaal tira badana waraaqa inti ka deediyan af soomaaliyana ka qoranaay abow shimaadda yuuradana af soomaali barteen war dooga noo dhegansoy wargado wali ka qoranaayey almujaahid lan leeraayo maraykan lan alilankii araga hanin sheego $5 milyan oo doolara la siiyey maraykankan la dijiyey qasri wiin ameerilanka dhesewa laari margareed reer diinsoor may baa laha lacagdiyeeda ay siin geefneey qasri maraykanka ay degdeena ar abow mujaahilkaas yaa i tusa 5 malyan aan ku doona lahaay war almujaahidka maraykanka ma ka waaye maraykan wuxuu ku jahaada maxaa diinsoor keenay mar hori may baa leeray jahaad ruuhu naga doonayo yurub ka soo duulay dana uu leeyahay ma asigaa gaalow dila waaye madayow maaygan ma haysid maxaa tirin ma haysid xaggeen kuu raacnaa war gabartii donald trump ee masaajidkii maalaad ku yaalla gashay ma muslimtay rag i rabbi doonaan ahay yeertay kaali masaajidka maxay ka doontayn haddaysan muslim ahayn war waxaa la yidhi ruuxii toosan baa ehel toosiye inaan aabbahee tilmaan siininoo xaq ku tarabiyayntaa anaa hubo isagaa tegoo tiisa u lumoo dunuubtiin badee tubta lagu wadaa inay baadil tahay miyaa tuun ka galay tolow ina taraa masjid bay tagtaye ma tawxiidda shalay qofkii talax tagoo taladii ibliis taageerayaa turxaamaha janto tira dulun ka badan ku tillaabsadee tamashlayn miya iyo taabal eeg mise tii allah ku tallaalanoo toobad baa u qoran tolow ina taraam masjid bay tagtaye ma tawxiidda shalay ilaahay kafuururaxiim walwalba yibaada koowdhe miida wal nool ha ka saareen hata ka horana eri aayadyey haddii saa muslimti qabilta arro war sidii waa gabiiltulaki ere wargooyo gabadhaas ma heshiideen war cabdiqani aadan barra xaguu ayaantan ka baxay ma dembiriyuu la soco wey war farxaanoo waa ku garanna waa la socawi meelay af
soomaaliga uga jirto ma aqaan anugu war ardaydii buntland waxaa la yidhi shahaadooyinkii waa la siinayaae goormaa la siinayaa waad maqasheen war xildhibaanadii ka soo jeeday buntland iyo dowladda isla meeraysanayee lama ogo wakhtigaa la siinayo nabadii nolol waxaan shuruud ku xirnayn ma dhiibto marka xildhibaanad waxaa laga rabaa inay deni garaan ka dhigaan war dani garaan noqon maaye cawad garaanaan garow geehaynaa ma dhaheen walle ninkii la yidhaha gareen garoowa gee shaqa waa u taal war waldheer maya diyaari la saare boowe buntland galmudug maaha gareenna nama soo galo arooda waxaa la yidhi warbaahintii waxaa laga rabaa leysin inay qaataan yaama darawaliinaa loo qoraaho baabuur ay wadi rabaan waxaa la yidhi weliba 2 toddobaad gudahooda ku qaateen war meeraysiga miyaa meeshaas la galay waxaa la yidhi guddiga isgaarsiinta ka soo qaataano war guddiga isgaarsiinta goorma ay heshiiyeen war waxaa kaloo la yidhi wasaaraddu warfaafinta ha ka qaateen kuway xarash u haydana haddaan fahminiyuu waa beri meel rabaa war wasaaradda isgaarsiinta iyo boosidanta ka dambayti aryaada dabya daaf leesma tusaa la yidhi waryaa aniga daaf ima haye mar dambe eebdaraasa ila imaanin waryaa kududiyaa ku hay maxaa daaf ku diidaysaa waryaada daafa aha iyo daba agjogaa dagaal ha noogu bilaabana dembigiina nagalmoodan ku leehay geedka hoostiisa war yaad leedahay waryaa xishooda oo sharci ilaamsamayn ishaamayn xishooda war cabdiqani burxaan ku dhacay miskiin qoortay ku dhufteen war naga taga midnimadu waa muqadise walaala goor istaga Soomaaliya waa muqadis